بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan idil ahaantiin baddaawadayaal saaxiibayaal guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee walaalaheena inagu tixan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalkeena hooyo gaar ahaan gobolada saddexda ee dagaaladii ugu adkaa ay ka soconayaan maalmahan daawadayaal waa gobolada Galgaduud Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe kooxda argixisada ee Al-Shabaab oo si aad u weyn u dhiig baxaya isla markaana la kulmaya khasaare aan caadi ahayn iyo culays la saaro kii ugu weynaa abid gobolka Galgaduud maanta kooxda argixisada ee Al-Shabaab ayaa laga la wareegay deegaanka istiraatiijiga ah ee Qayb kaas oo u dhaxeeya deegaanada degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale isla deegaanka Xiindheere isla gobolkaas kooxda argixisada ee Al-Shabaab ayaa daawadayaal wax dagaal ah aan markaas la galin ciidamada huwanta oo kala ah ciidanka xoogga dalka Gorgor kuwa maamulka Galmudug iyo sidoo kale ciidamada 12aad iyo ciidanka macmusleyda ama ciidamada deegaanka ee beesha Reexaaj Saleeman dagaal la'aan ay kula wareegeen deegaanka Qayb argagixisada nafla caariga ee Al-Shabaab oo deegaankani uu ahaa deegaan istiraatiiji ah ayaa markii ay ka sii holeelayeen oo ay lafahooda la cararayeen daawadayaal waxay sii gubeen sida xoguhu ay sheegayaan xarumihii isgaarsiinta iyagoo sidoo kale sii burburiyay ceelkii riiga ahaa ee uu deegaankani lahaa dadka shacabka ah ayay qaarkood ku khasbeen in ay sii raacaan walow ay ka hareen intii badneed sida xogtu ay sheegayso Al-Shabaab caraad weyn ayay kula jireen dadka deegaanka u dhashay beesha Reexaaj Saleeman maadaama ay ka waayeen ciidamada ay soo bandhigaan oo la mid ah ciidamadii kale ee maalmahan ay ku soo bandhigayeen qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe oo ay sheegayeen in ciidamada qabaa'ileed ay u bixiyeen cimaamadley in ay markaasi ka mid noqonayaan halganka ay ku jiraan argagixisadu oo ay kula jiraan dawladda Soomaaliya ayna sheegeen safka hore in ciidamo soo dhigi doonaan isku day kaas oo kala oo ay markaasi sameeyeen oo ah in ciidan beesha Reexaaj Saleeman ku abtirsanaya oo sheega inay ku qanacsan yihiin maamulka iyo koostirka xukunka Al-Shabaab in la helo ayaa u suuroobi weysay waxaana la soo warinayaa in ay culays aad u weyn ay saareen beeshan oo ay odayaal badan ka xirxireen sidoo kalena ay dad badan oo iyaga ka tirsan dhibaatooyin kala gedisan ay u geysteen kooxda argixisada ee Al-Shabaab gulufkii gobolka Galgaduud oo walow daawadayaal markii ugu horeysay la arkayo ficiladii waaweynaa oo gulufkaas hase yeeshee muddo la abaabulayay waxay isku dayeen sida xogtu sheegayso inay fashiliyaan iyagoo soo dhexmaraya odayaal iyo shakhsiyaad kale si ay xiisadda u qaboojiyaan xamar ayay isla beesha waxay kaga dileen xubno iyo shakhsiyaad muhiim ah oo ahaa waxgarad iyo ganacsato si ay ugu yaraan u cabsi geliyaan taa ayaana socoweysay saraakiil beesha u dhashay iyo sidoo kale dad geesiyaal ah oo iyaguna raba inay mitidaan ayaa dhawaanadan abaabul ka waday deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud sidoo kale daawadayaal kooxda argixisada ee Al-Shabaab ayaa laga saaray dhulkii Saleeman cirifka xagga marka la eego haddana waxa loo jeeysan doonaa deegaanada kale ee gacantooda ku harsan oo markaasi ka tirsan gobolka Galgaduud waa tahay daawadayaal argagixisada Al-Shabaab waxay la kulmayaan dagaalo aad u xoog badan oo ay kala kulmayaan shacabka Soomaaliyeed qaarkood oo kaashanaya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dhanka kale marka aynu eegno daawadayaal waxa kooxda nafla caariga ee Al-Shabaab culays aad weyn u ka haystaa gobolka Hiiraan badiba gobolka ayaa laga saaray argagixisada bariga iyo koonfurta gobolka ayaa laga jafay kooxda inta xaaqin la qaatay waxaad moodaa in la fiiqay sidii uskagi ama qashinkii waxayna kooxdu ku sii harsan tahay galbeedka gobolka Hiiraan taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Biixi oo kula la qaatay saraakiil ka soo jeeda galbeedka gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in la ilaaminayo dagaal culus oo kooxda looga saarayo qaybaha ay kaga sugan yihiin galbeedka gobolka Hiiraan deegaanada istiraatiijiga ah iyo degmooyinkii muhiimka ah oo dhan iyo gabi ahaanba deegaanada ay ku dhuumaalaysanayeen argixisada ee bariga iyo koonfurta ayaa laga saaray kooxda argixisada Al-Shabaab oo madaxooda la dul dhigay lacago qofkii soo qabtaana uu faa'iideeyo kharashaad badanna uu helayo ayaa haatan waxay noqdeen kuwo toosh lagu goobayo oo qofkii argagixisada Al-Shabaab ah ayaa waxa madaxiisa iyo waliba xinihiisa la siisanayaa lacag gaaraysa $5,000 taas oo dad badan haddii qof uu 3 qof soo qabto sida uu ku faqri baxayo waxaana moodaa Al-Shabaab inay noqdeen dhagaxa diamond la yiraahdo ama dahabka oo ay bulsho ay hore abaar u daashatay qaarkoodna ay ayagu xoolahoodii ka qaateen haatan ay raadinayaan sida uga soo kabsan lahaayeen shir amni ayaa ka soconaya degmada muhiimka ah ee Maxaas daawadayaal ujeedka shirkan ayaa waxa uu yahay in markaasi xoog la saaro sidii Al-Shabaab deegaanada ay ku harsan yihiin ee gobolka
hiiraan looga saari lahaa sidoo kalena deegaanadii hore loo xoreeyay xasilintooda iyo amnigooda loogu dadaali lahaa si ay dhinacyada al-shabaab aysan marnaba u helin chance General Biixi ayaa ka qayb galaya shirkan sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dawageed gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanada Soomaaliya iyo baarlamaanka Hirshabelle xubno wasiiraha oo isla baarlamaanka Hirshabelle ka tirsan ayaa shirkan ka qayb galaya ujeedada ugu weyn waxay tahay deegaanada ay kaga halsan yihiin in laga saaro sidoo kalena in la caawiyo halganka ka soconaya gobolada Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud hadii mar laga farxasho kuwii ku sugnaa gobolka Hiiraan ciidamadii ugu badnaa ayaana ku sugan furimaha kooxda argixisada ee al-shabaab lagu xasuuqay dagaalo waaweyn oo ay kooxdu isku dayday in ay dib ay ugu qabsadaan degmooyin laga qabsaday gobolka ama ugu yaraan ay ku hakiyaan halganka oo ay ku soo dhiiran gobolada kale oo ka dhacay gobolka Hiiraan oo deegaanada Jicibow iyo Ceel Qooxle iyo deegaano kale ah ayaa gabi ahaantoodba afka ciidda loogu daray al-shabaab ayaa moodaa in markii ugu dambeysay laga sawirsiiyay inay gobolka Hiiraan ka sameeyaan wax isku daya iyo wax dhaqdhaqaaqya oo dagaal dhinaca kale daawadayaal waxa wali dagaalo culus ay ka soconayaan gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan masaajidka Cali Guduud oo ah deegaan istiraatiiji ah oo kamid ah deegaanada ugu waaweyn ee al-shabaab ay ku soo hiri jireen marka laga yimaado degmada Aadan Yabaal waa saldhigga labaad ee ugu weyn ama kan koowaad ayaa lagu sheegay deegaanka masaajid Cali Guduud waxaana saacadihii la soo dhaafay ilaa iyo 22 bishan ka soo bilow ilaa iyo shalay soconayay duqeymo iyo dagaal joogta argagixisada naflacaariga ee al-shabaab ayaa maleeshiya aad u fara badan dhoobtay dagaalka si ay u hor istaagaan gulufka culus ee ciidamada beesha Mudulood iyo sidoo kale ciidamada federaalka ee iskaashanaya al-shabaab way ku guul dareysteen inay maara u helaan dagaalkii ugu cuslaa abid oo dhinacaasi ka soo wajahay xildhibaan xaadoole saraakiil kale iyo mas'uuliyiin kale ayaa hogaaminaya dagaalkan kooxda argixisada ee al-shabaab ayaa sidoo kale duqeymo dhanka cirka oo ba'an waxay kala kulmeen diyaarado drones ah kuwaas oo ay kala leeyihiin ciidamada Soomaaliyeed gaar ahaan ay ku taageereen dawladda Turkiga iyo diyaarado ay leeyihiin dawladda Mareykanka gaadiid qaraxyisiday ayaa dhulka la simay oo la gubay daawadayaal halka amiiro iyo saraakiil sarsare oo isla al-shabaab lagu dilay halkaas Cabdillaahi Cali Caraaye oo ahaa amiirkii u qaabilsanaa deegaanka masaajid Cali Guduud ayaa la soo warinayaa in laga dilay kooxda argixisada ee al-shabaab horjoogayaal kale iyo xubno qaali ah dhankooda marka la eego ayaa argixisada al-shabaab lagaga dilay isla deegaanka argixisada al-shabaab ayaa xogtu waxay sheegaysaa baabuur gaadiidyo qaraxyo waawe ay ka soo buuxiyeen oo ay rabeen inay ku weeraraan saldhigyada ciidamada iyo sidoo kale ciidamo ay diyaariyeen intaba inay la kulmeen burburin xoogan al-shabaab ayaa la soo warinayaa inay ka firxadeen eriyadaas ciidamo abaabulan oo xoogaya oo ka soo jeeday beersha Warsangali Abgaal oo ay dagaalka xoog ku galiyeen ayaa khasaare badan ka soo gaaray sida xogtu ay sheegayso dagaaladii maalmahan ka dhacay deegaanada masaajid Cali Guduud hoos yimaada ciidamada dawladda ayaa kaabiga ku haya deegaanka masaajid Cali Guduud oo la filayo biri inay mar kale ku ruqaansadaan maadaama maalmihii la soo dhaafay ay dagaalo culus ay ku wadeen kuwaas oo ay ku banaysanayeen daawadayaal deegaanka qabsashada masaajid Cali Guduud waxay ka dhignaa doontaa argixisada al-shabaab in laga taqalusay bar saldhig oo ah saldhigyada ugu waaweyn ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo yoolka ugu weyn uu yahay masaajid Cali Guduud marka laga gudbo degmada qadiimiga ee Aadan Yabaal oo ah rugti u sahlaysay inay gobolka Hiiraan ku qaadaan weeraro saxiixiga oo ku dhufo ka dhaqaaqa sidaad u aragto daawade fikirkaaga dhanka hoose nagula wadaag muuqaalka sii sheer galay oo la wadaag saaxiibadaada si ay markaas uga qayb noqotid halganka mar walba ku dhiiranow la dagaalanka kooxda argixisada al-shabaab si aynu uga aarno dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed ay u geysteen sanadihii badnaa ee markaasi in soo dhaafay